reer baxdo ayaga ayaa tusay shabaab in laga adkaa inaan xididda siibno waay barkaan jacar ka sii soco muxuu ahaaye ceelbuur galhareeri hore u sii soco ceeldheer maxaa galcad masagawaa dhul xaradheere oo inta ah u dhow ceel qooxle maxaan ku yidhaahdaye ceel garas kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada nagu xiranow muuqaalkeena maanta waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa safarka madaxweyne xasan sheekh uu ku maraayo gobolada hiiraan iyo galgaduud. madaxweyne xasan sheekh safarkiisa uu ku maraayo degmooyin ka mid ah ama tuulooyin ama magaalooyin ka mid ah gobolada hiiraan iyo galgaduud ayaa waxa uu ku tagay degmada baxdo, waxaana soo dhaweeyay culummada ahlu sunna wal jamaaca oo u ahayd udub dhaxaadka ama tiirka difaaca gobolada galgaduud ka difaaca khawaarijta, iyagoo marar badan isku soo dayay in ay la wareegaan maamulka ama gacan ku haynta degmooyinka galgaduud sida dhuusa mareeb matabaan iyo degmadan haatan uu booqday madaxweynaha ee baxdo, laakiin jab iyo lama filaan iyo halaag ay kala kulmeen tiyo culummada ahlu sunna wal jamaaca ay jilibka u aaseen difaacdeena deegaanadooda, haatan ay u diyaarsan yihiin inta hartay ee ay fadhiisamaha ku leeyihiin ay ka saaraan. madaxweynaha oo culummada dikirsalaan ku soo dhaweeyay ayaa wuxuu aad ula dhacay isku duubniday wadajirka ka muuqata dadka deegaanka culummada iyo ciidamada. madaxweynaha oo aad ula dardaarmay khudbo aad u dheerna uu ka jeediyey ayaa waxaan jeclaystay inaan idinku duwo khudbadii madaxweynaha halkaas uu ka jeediyey oo darafo badan iyo meelo badan taabanaysa. madaxweynaha ayaa wuxuu cagta marinayaa meelaha khawaarijta laga xoreeyay iyo magaalooyinka iska difaacay ee ay hollin waayeen inay marna soo haweystaan khawaarijta. madaxweynaha oo sheegay in uu maxaa la yiraahdaa marka dambe meelaha haatan laga xureeyay oo ku maraayo diyaarad helicopter uu ku imaan doono insha Allah taala gaadiidka dhulka ama baabuur uu ku imaan doono hadduu Ilaahay yiraahdo. waa kan madaxweynaha oo ka hadlayo khudbadiisa ka soo jeedina ama hadal jeedintiisii halkaasi uu ka jeediyay, bal ku soo dhawaada. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير. ما أنت رنتي أنا مالين آدي آد وين أو فرحد وين إجليني سواية إن أنا بحض إماده وفرحد ضد كان إن أنا سودة حستاج وفرحد كله ذكر السلام اللي يقصد وين وفرحد كله أيضا علماء aad ayaan ugu mahad celinayaa. waxaana haystana waa intaan nimanku wiilasheennii ahaayeen, laakiin wiilasheennii oo la khalday qalbiga iyo caqliga wax baas loogu shubay waaye. inta ay waxaasi qalbigooda ku jiro waa cadow, inta ay aaminsan yihiin wax qalloocan ay aaminsan yihiin waa cadow. kii ka soo noqda ee inta baraaruga soo noqda waxaa la hubinayaa inuu ka tanasulo wixii uu soo noqda, laakiin waa wiilkeennii. dibaad dalkan dalan ahayn ma qabo, dadkan dadan ahayn ma qabo, waa la khalday. maantoo dhan waa u sheegnay in la khaldo waayey in la khalday. kii qaatay in uu fahmay oo in la qalday qaatay ee soo noqdana waa wiilkeennii. kii qaadan waaye ee mabda'aasi maskaxda ku haystee aaminsan ee weli sii socdana waa cadow, waana la iska dhicina. reer baxdo ayaga ayaa tusay shabaab in laga adkaa karo dadka hadda waayahan dambe. weligeedna shabaab taariikhda 15 sano iyo jarjarkii ay dalkan iyo ummaddanba dhibayeen meelaan culimada aanay yac ka dhihin yac lagama dhihin. haddii ay galgaduud qaybaheeda kala tahay iyo haddii ay mudug tahay iyo haddii ay meelo kala tahayba
meesha culimmadu ay u istaageen nimankaas qaladkooda in la diido ayaa laga diiday meeshii tabardarro ay qabatay oo maxaanku idhaahdaa wax u shaqay waayeen waa halkeeda laakiin codka keliya ee hor istaagnaa nimankaa ee yac lahaa ee maya lahaa ee ma jirto ee waa beentood lahaa culimmaday ahaayeen culimmada ma aha midda ay sheeganayaan ayaga qofku khamiisna waa qaadan karaa cimaamad weynna muxuu ahay korka waa ka soo huga karaa culimannimo intaas ma aha culimannimo waa waxaad dadkaada u sheegtood bartaa daliil u ah inaad nin caalima tahay in kale haddaad cilmi leedahood gurigaaga la seexato culimo ma ahid haddaad cilmi leedahood ilaahaaga ku caabudood ku toosto nin taqi ahaad tahay culimo ma ahid haddaad dadka inta soo hor istaagto waxa xunna aad ka celiso waxa toosanna aad u tilmaanto oo waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii aad dadka aad tusisid markaasaad caalim iyo callaama intaba aad tahay markii dadka la dulmina ee lagu edabdaroona ee intii diintu ay fartay in la ilaaliyo la ilaali waayo oo intii diintu ay fartay inay la reebi waayo hadda maalintaas waa maalintay muxuu ahay ninka culimmada ahoo saxda ay u baahan tahay maalinteedii aana ka soo baxdeen masaajidka ilaahay waa u jeedaa xabadaha ku yaallo hadba dadkan meesha jooga xabadahaas kuma dhufan masaajidka ninkaan masaajid qofkan ku jiro aanay ka ammaan helayn kii sujuudsan uuna ka ammaan helayn kii weesaysanaya aanu ka ammaan helayn kii alla dartiis u socdo waddadiis iska maraya xataa oon waxaasoo dhanba iyo siyaasad iyo dagaal aanan ku jirin aanu ka ammaan ka helayn haddee anuu ma aqaan wax runtii lagu tilmaamo 29kii bisha oktoobar ee la soo dhaafay dadkii zooba agaarkiisa lagu laayay dad dagaalama ma ahayn qorya ma sidan islaan meesha muxuu ahay hilib ku gadaysa mid gaari gacmeed riixaayo oo moos iyo mambeelma ay u saaran yihiin oo iibinaayo arday wasaaradda tacliinta yimid oo shahaado raadsanayo mid baabuur meesha taagnaayo safar ahaayoo socday saaran oo safar ah sidiisaba mid maxaanku idhaahdaa xaafadaha ka soo baxay oo bajaaj saaranoo asna jidka zaxmad yar inta ka gasho waxeeye 100 iyo jarjar qofoodoo ka mid ah dadka noocaas ah saas sifahaas leh ninkii dilay ee weliba waad maqasheen hadda inta soo istaagay haddana dhahayaba wixii saxa ayaan samaynay oo muxuu ahay ridaan wasaaradda ma gelin dadkeedii ma dhiman wax kama bi'in dadkaas musaafiriinta iyo saakay biilka ilmaha u soo doontay ee jidka taagna wax ku dhintay maxaa lagu micnaynaa sanad ka horna 600 oo qof meeshaas ku dhimatay 5 sano ka hor 600 oo qofooda hal subax ku dhimatay maxaa lagu micnaynaa dadkaas abriyada ah oo dhiigooda saas u daatay annaguna inaan fiirsanno sana yeelaynaa waana telefonaa la ii soo diray waa la idilaahe saan yeelaahe waa magaciisii aan dhahno waxaan u malaynayaa culimmadana waa joogtaaye meeshaas inuu dembi ka jiraan u malaynayaa maxay ahayd munkarka gacantaada ku suuli haddaad aragtood munkar u aqoonsato gacanta haddaad kari waydo carabkaaga iyo afkaaga ku suuli haddaad kari waydo qalbiga ka nac qalbi ka naciddaas maxaa la yidhi marka waa adcafu liimaan wadaalika adcafu liimaan waaba karnaayo waaba kanaa waaba aragnaya maxaan qalbiga keliya uga nacaynaa waryaa naga tag maan dhahno waa kasnaa bes ma ahane waa karnaa kasid keliya oon la aamusannahay nuguma filla waxa aan karno inaan qabannaan u baahannahay tusaale fiican oo marna naga nuxuusaya marna noo soo xoogaysanaya ayaad si kama dambays ah yaad muxuu ahayd daaha uga qaadeen khayr iyo ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo intii dhimatayna intaasaa shuhada ahe ilaahay jannadiisii ha ka waraabiyo inta dhaawacantana allah ha bogsiiyo laakiin waa dhimanayna waana dhaawacmayne
ma dhihi karno markaan dagaalkan galnay bisaa dhimashadu nagu bilaabatay nimanku dadka waa laaynayeen weliba tarab yani boqol iyo laba lix boqol u laayo waaya hal qof ma aha dhawaan magaalooyinka istaagay ee iska xoreeyay shabaabka wixii dawladnimada ay ku lahaayeen oo muddooyinka la soo dhaafo dhan ka maqnaa ilaahay idankiis hadba intii suurtagal way soo gaari doontaa magaaladan guryo maamulka ah iskoolaad bara caafimaad wixii loo heli karo oo dawladdu maalin walba intay heli karta inay ula soo degdegto waa la suubinaya haddii alla yidhaah waxaan rabaa inta dhiman deegaanka galmudug baxdo aan maanta joogno markaan ka nimaado mudug ee galgaduud aan nimaado carrada dadkaana ay tirsanayaan inta badan maanta waa cadowgu waa laga xoreeyey dhiiggiinna iyo xooggiinna iyo maxaan ku idhahdaa dawladda labada heerood iskaashateen ayayna ku timiday laakiin galgaduud iyo galmudugba waa dhiman yihiin haddii shabaabku meel yar oo ka jirana inta soo cifow halkanna waa soo noqonaya waa imaanaya inaan xididda siibno waayo marka degmooyinka noo dhiman magaalooyin dhammoo waaweyn oo sidaanoo kale magaalooyin dhismay oo camiran ah ayaa cadowga naga haystaa barkaan jacar ka sii soco muxuu ahaaye ceelbuur galhareeri hore u sii soco ceeldheer maxaa galcad masagawaa dhul xaradheere oo inta ah u dhow ceel qooxle maxaan ku idhaahdaaye ceel garas yacni dhuloo dhan waa noo dhiman yahay marka xeradaan haddaan ka bixinay dhurwaaga xerada inta kaa soo gala aad iska bixiday laakiin bannaanka taagane wuu soo leh arigaagu nabad ma aha arigaagu weli nabad ma aha ilaa dhurwaagaasi ama aad disho ama meel aanu ka soo noqon karin aad geyso nimankaasi meel aanay ka soo noqon karin iyo badda inay ku cararaanaan rabnaa ay baxaan marka deegaanada qaarkood waa dhow yihiin akhyaarta inta joogta xasuusaxiin dheeroo kale waaba kanaa waa muuqdaa ha layidhi marka dhulku waa dhulkanagii haddii uu dheer yahay iyo haddii uu dhow yahayba laakiin ka dhow aan ka bilaabaynaa kan dheerna waa ku tegaynaa safarka 1 kilomitir aad ugu socoto waxaa layidhaha hal tallaabo ka bilowdaa tallaabada ugu horraysood qaaddow ka bilowdaa safarka waa bilowda tallaabada koowaad tallabaad ilaa 1 tallaabo aad 1 kilomitir safarkii ah aad ku tagto waa guulaysanay li'anna xaqaan ku taagannahay diinteenna xaniifka ah waxa ay nafaraysaan ku taagannahay dulmi kuma taagnin been iyo huhaa sheegi mayn waa ku celceliya nimankaasi wadaadana ma ah diinna ma ah waa gruub maafiyo burcad waaye oo hugsaday mara diimeeday hugsadeen waxaan u baahannahay marada inaan ka qaadno dadku si uu u wada arko inay maafiya yihiin burcad inay yihiin dadku inuu wada arko walaal male ogaaw wiilkaad adeerka u tahay midkaad abtiga u tahay midka aad eedada u tahay ama habaryarta u tahay ee shabaabka ah waa shabaab wiilkaagii maaha yaan lagu khaldamin sidaas aad iyo aad ayaan mar kale reer baxdow idiin salaamayaa idinkugu mahad celinayaa idiin bogaadinayaa idiinna ammaanaya insha allahu safarkii ugu horreeyey uguna dambeeyey ma noqon doonee waa idiin soo noqon doonnaa annagoona helikobtarra ku imaanayna jidka ku imaanaynaa idiin imaan doonnaa haddii alla yidhahdo aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh